السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Juba Institute of Professionals. ومادة كميدة شنطة مادة كورسنا English كا وليبا قران قيمة بالintermediate كا وانا real English phrases أو English phrases هذا مقصو وجملة لها لا استعماله في إنجليز كما قد قال ليس الجملة لها استعمال يسوي وانا قصب ومهم qofka inuu yaqaano hadaba darta koorso dhameystirashan ma dadku badan qaato fadlan iga soo xiriir markaasi cashirkeena u horeeyo wuxuu noqonayaa marka sida soo socoto ko 10 informal ways to say yes and no waxaan baraynaa 10 hab oo informal waxa la habka dadka caadiga isku hadlaan gaar ahaan dadka taqaana isaqaana iyo suuqa iyo dadka say isku hadlaan oo ay u dhahaan yes ama no waxa kamid ah qaabka yes iyo no loo dhaho waxa kamid ah yeah, yep, aha, sure, nope, nah, no way. Hadaba hababkani shanta horeyso waa yes ama waa ogolaasho, shanta hoosena marix wixii hoosena waa didmo. Waxa hore yeah waa yes ha, yep ha, ha, aha ha, sure ha, inta waa ha, nope maya, nah maya, 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 no way ma dhici karto maya, no way tan diidma aada way marka saas way marka waxa laga rabaa inaad barato luqadan lagu hadlo waxaan kaloo ku baraynaa common English greetings and answers qaab salaamaha ama qaabka la isku salaamo Ingiriiska iyo jawaabahooda waxa uu horeeyo how are you sida tahay way waxa uga jawaabi kartaa I'm fine waa fiicanahay thanks so much tahay pretty good waa fiicanahay I'm well waa fiicanahay how about you adiga iska war qaabkaas uga jawaabi kartaa waxa kaloo salaamaysa how are you bedelkeeda how is it going xaaladda ka waran how you doing kulli waa qaab kale oo iyadana uun sida tahay la isku dhaho marka qof wuxuu ku jawaabi karaa it's going well xaaladdu waa fiican tahay I'm doing well waa fiicanahay and you adigana iska war waxa kaloo kamid ah habka la isku salaamo what's up what's new what's going on kulli macnaheedu waxa weeye iska waran maxaa cusub oo weyn waxa ku jawaabi kartaa marka nothing waxa ma cusbo not much wax badan ma jiro ama hadii kale briefly describe anything new hadduu jiro wax cusub si kooban u sharaxaysaa waa interesting ama wax xiiso leh that is going on in your life noloshaada wax cusub hadduu jiro si kooban u sharaxaysaa kabacdi waxaad haysaa what about you adigu iska waran qofkaad ku celinaysaa qaabka la isku salaamo waxa kamid how is everything how are things how is life waxaas dhan waa iyana qaabka la isku salaamo how is everything how are things how is life iyo wixii la mid ah waxa ku jawaabaysaa good waa fiicanahay fine waa fiicanahay great waa fiicanahay wonderful ajib couldn't be better hadda lagu fiicanahay hadda lagu fiicanahay can't complain waxa sheegtay dambi ama cabasho ma qabo not bad ma xumo waxa kale ka oo you could also briefly share any interesting news hadda wax cusub jiro kale waa la wareegaysaa about your life noloshaada ka bacdi qofka markaad what about you baa leedahay haba kale la isku salaamo waxa kamid ah how have you been iska waran how have you been badana qof aad taqaano ama hore u aragteen baad dhahaysaa how have you been wuxuu ku jawaabi karaa good fiican great ajib not bad maxmo never been better hadda ugu fiicnay I could be better waa iska roonaa camal wey yani micnaheedu waxa my state is not as good as it might be xaaladda aad uma fiicna wey little crazy actually waa iska qaab daranta camal hectic yani waa kacsanta oo kale I've been busy mashquul banaa as usual sida caadigeed kabacdi markaad waxaad ku jawaabi mid karta ku jawaabi kartaa how about you iska war marka dhammaan kuwan mid kamid un ba ku jawaabi kartaa waxa kaloo weydiin karaa how is your family qoyska ka waran waxaad ka tahay fine waa fiicanahay thanks so much for asking inay weydiisatay how are you and your family adiga qoyska iska warama saas wey waxa kaloo karaa what have you been up to lately aad bay isku dhahaan what's new with you waxa ka cusub kala wey badana qof ay istaqaaneen oo muddayn is arkin ayaad weydiinaysaa waxyaabaha kaga soo kordhay marka waxaad kartaa matala haduu war badan aad rabin waxaad kartaa nothing special wax cusub ma jiro same old waa iska sidoo hore not much wax badan ma jiro or you can share common interests waxyaabaha isla danaysan u sheegaysaa like job shaqada kale laga sheekan kartaa relationship xiriir family qoys studies marka it depends on how much information you want to share waxay ku xiran tahay inta xog rabto inaad la wadaagto qofka or your relationship to the other person ama qofka la xiriirka la leeyahay
waxaa kale mid qaybaha kale la isku salaa waxaa kamid ah markay tahay business of formal greetings salaamta rasmiga matala waxaa kamid ah good morning subax wanaagsan, good afternoon galab wanaagsan, good evening fiidnimo wanaagsan. marka tan badanaa dadka oo shaqadeeda ka dhaxayso oo rasmiga ayaa loo isticmaalaa magarat saas loo isticmaalaa dadka kale caadiga ah. waxaa kaloo dhigan it's nice to meet you waa aad baan ugu faraxsanaa kula kulmo ama pleased to meet you waan ku faraxsanaa kula kulmo. kana waxaa la qof marka isku kala horeyso. slang greetings waxaa jira salaamo kale oo ayagana afsuuqa waxaa kamid ah yo howdy kuwana ayaga un marka madaxa baan ruuxaysaa badanaa jawaabo saas mala madaxa baan ruuxaysaa afsuuq wey. waxaa kaloo dhigan are you okay, you all right mate kulli marka kuwan waxaa u jawaabtaa yeah fine all right waxaas u jawaabi kartaa. waxaa kaloo dhigan sup what's up waxyaabahaas oo kale lagu dhigaa sup what's up aad iska waran wey waa afsuuq. nothing waa ku jawaabi kartaa not much. waxaa kaloo dhigan karaa here how are you la soo gaabiye wey hey aad ku jawaabaysaa. aad iyo aad baad umahadsantiin cashiradan oo kale aad iyo aad bay muhiim u yihiin. waxaa loo baahan yahay inaad barataan haddii wadaad rabto inaad qaato koorsadan oo dhammaystiran oo 5 maado oo kala duwan ka kooban fadlan taleefonkayga hore la soo xiriir. aad baad umahadsan.